Assalaamu calaykum walaalayaal waa idin salaamay dhammaan walaalahayga sharafta leh oo ku xiran janaalkan sahan wadi ma ogtahay in caalamkan ku noolnahay uu ka kooban yahay 7 qaaradood ma ogtahay in caalamka loo kala qaybiyo caalamka qadiimiga iyo caalamka cusub caalamka qadiimiga waxaa la isku dhahaa qaaradaha kala ah Yurub, Asia iyo Afrika halka caalamka cusub uu yahay qaaradaha Australia, America iyo Antarctica muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa macluumaad ku saabsan 7 qaaradood ee caalamka ka jirta waqtigan hadda aan noolnahay waxaa jira dad badan oo aan ogeyn ama aanan aqoonin inuu caalamku ka kooban yahay 7 qaaradood dadkaas oo dhihi doona Zaki caalamku waa 5 qaaradood haddaba waxaan filayaa dadkaas markay daawadaan muuqaalkan inay wax badan fahmi doonaan ku soo dhawaada mowduuceena maanta qaaradda caalamka ugu weyn waa qaaradda Asia. Qaaradda Asia waxaa lagu naynaasaa qaaradda maroodiga, qaaradda cajaa'ibta iyo la yaabka. Qaaradda Asia waxay ka kooban tahay 50 waddan. China iyo India waa labada dal ee ugu dadka badan qaaradda Asia. Dhulka ay ku fadhida qaaradda Asia markii loo fiirsho caalamka waa 33%, halka population-ka dadka uu ka yahay dunida 60%, halka 10 buurood ee caalamka ugu dheer ay ku yaalin qaaradda Asia. waxaa ka jira qaaradda Asia diimaha ugu badan caalamka sida diinta Hinduismka, diinta Islaamka iyo diinta Buddhismka oo looga dhaqmo qaaradda Asia. Sidoo kale qaaradda Asia waxaa ku hareeraysan 3 bad oo kala ah badda Indian Ocean, Pacific Ocean iyo Arctic Ocean. Qaaradda labaad ee caalamka ugu weyn waa qaaradda Afrika, qaaradda khayraadka iyo macdanta, qaaradda dadkeedu liitaan balse ka khayraad badan dhammaan qaaradaha caalamka. waxaa lagu naynaasaa qaaradda Afrika qaaradda shukulaatada balse nasiib xumo Afrika laguma sameeyo shukulaatada ee waxaa laga soo qaataa geedaha laga sameeyo shukulaatada ee koobka waxaana taas u sababa dadnimo xumada ka jirta qaaraddan waayo dadkeedu ma fikiraan waxaana lagu sameeyaa shukulaatada wadamada kale ah Belgiumka iyo Switzerland. sidoo kale waxaa lagu naynaasaa qaaradda Afrika qaaradda kulaylka. dhulka ay ku fadhida qaaradda Afrika waa 20% caalamka halka dadku yihiin 14.72%. Afrika waxaa ku yaal dhulka ugu weyn ee lamadegaanka waana saxaraha Liibiya. sidoo kale waxaa mara webiga caalamka ugu dheer waana webiga Niil ee mara dalkaasi Masar. sidoo kale Afrika waa qaaradda caalamka barta waxaana ku yaal dhulbaraha caalamka. sidoo kale waxaa ku hareeraysan 4 bad oo kala ah badda dhexe, badda cas, badweynta Hindiya iyo Atlantic. North America waa qaaradda saddexaad ee caalamka ugu weyn. dhulka ay ku fadhido qaaradda North America waa 16%, halka dadku ay ka yihiin dunida 7.8%. waxaana ku hareeraysan qaaradda North America 4 bad oo kala ah Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean iyo Caribbean Ocean. kooban tahay qaaraddan 23 waddan waxaana hogaaminayo Mareykanka oo ah dhaqaalaha caalamka ugu quwadda sarreeya. qaaradda afraad ee caalamka ugu weyn waa qaaradda South America. sidoo kale qaaraddan waxaa lagu naynaasaa qaaradda maska. waa qaaradda laga helo masaska adduunka ugu waaweyn. South America qaaraddan waxay dhanka galbeedka xuduud kala leedahay badda Pacific Ocean, halka bariga iyo waqooyiga ay kala leedahay Atlantic Ocean. sidoo kale qaaraddan waxay leedahay waxa lagu magacaabo biyo dhacyaasha caalamka ugu dhaadheer ama waxay Soomaalidu u taqaano togaga iyo dhulal badan oo kala cajiib ah. wadamada ugu waaweyn qaaraddan waxaa ka mid ah wadamada kale ah Brazil, wadanka Argentina, Chile iyo Uruguay iyo wadamo kale oo badan. Antarctica waa qaaradda shanaad ee caalamka ugu weyn. 98% waxaa qaaraddan ku dahaaran baraf waxaana lagu magacaabaa qaaraddan qaaradda lamadegaanka Desert Continent. sidoo kale waxaa qaaraddan ka jiro dabaylo duufaano wato taasoo aan saamaxayn in la dego. dadka halkaas ku nool waxaa la sheegaa inaysan deegaan ahaan halkaas u joogin balse ay u joogaan baaritaano. heerkulka Antarctica ee barafka waa -89°, waana sababta looga cararay qaaraddan. Yurub waa qaaradda 6aad oo caalamka ugu weyn. waxaana ka hadlaynaa maahan dhanka horumarka iyo dhaqaalaha ee waxaan ka hadlaynaa waa dhanka
Dhulka ay ku fadhida qaaradda Yurub waa qaarad yar balse horumarkeedu badan yahay. Dhulka ay ku fadhida qaaradda Yurub waa 6.8% caalamka, halka dadkeedu adduunka ka yahay 11%. Waana tiro yar marka loo fiirsho Afrika iyo Asia. Waxaana ku hareeraysan 4 bad oo kala ah Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea iyo Badda Madow. Australia waa qaaradda ugu yar caalamka, waana qaaradda ugu dadka yar caalamka. Waa dhul badankiis aan la deganayn, waxayna ku taallaa cirifka ugu dambeeya adduunyada. Waxaana lagu naylaasaa qaaradda jasiiradda, waxaana ku hareeraysan 4 dhinac bad. Qaaraddan waxay caan ku tahay xayawaanka lagu magacaabo kanguru, waana xayawaan ku yar dunida. Xayawaankan wuxuu ilmihiisa ku qaataa caloosha markuu ordayo ama soconayo. Sidoo kale Australia waa jasiiradda caalamka ugu weyn. Qaaraddan 75% waa lama degaan. Intaas waxaa noogu eg barnaamijkeenna maanta oo aan uga hadlaynay qaaradaha caalamka. Waxaan filayaa haddii aad nagu soo biirto inaad wax ka faa'iidaysid janalkan. Waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.